بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد maanta bishu tahay 14 bisha October 2015 waxaan maanta halkan aan saxaafadda marinaya musharixiinta xusbiga kulmiye ee beesha Subeer awal ka soo jeeda waxa waliba si gaar ah la hadlaya wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biyo Gudi Cod oo ay soo qeyshaatay inuu noqdo musharax mustaqbalka madaxweynaha xusbiga kulmiye waxa la hankaaga wad ku guudorto cod anaga helisid iyo taageero anaga helisid hadaan beesha bariga hargeysa horta ma turto mid labaad adigoo wasiirka arrimaha dibadda aba biyo xubbo weyn soo taagtay oo tii gacan libaax iyo maxamuud haybe iyo ahmed cabdi maaya ninkaaga ina hargeysa wada cabmayso ee reeraha soo qoobooban maanta madaxweyne noqotay maxaa sameyn doontaa marka waxaan ku leeyahay musharaxan aad maanta ku qooday annagu ma aaminsan kuma taageersanin hadday yihiin kuwa aan isku haybtanahay ee golaha dhexe kulmiye ku jira waxa la yiraahdo ninkii maxamed yuusan bixi taageersan ee xusbiga ku jira goliis dhexe nama matalanaka codkeega nama matalo codna naga helmis adigoo wasiira ba ficilkaagi iyo talaabadii bal arkay maanta haddii aan madaxweyne noqotayna waxa uu hargeysa ha kala sareyso second citizen iyo first citizens hanooda taasina wax aqliga gali kara Suldaanka guud sugan wallah mid baa la Sulد Xasana waxa la Sulد Xasana hadii Subeer awal ay ciid u tahay musharax madaxweyne hore waa u jiray wana Jamaal Ali Hussein ninka habar awal maanta musharax waa anaguna waa qoonsanahay inuu musharax yahay marka Suldaanka waxa la taynabada Suldaanka oo toostahay guud Subeer awal baatay ha kala ay xareen musharax Subeer awal la yaqaan Jamaal taageer ma kulay wala talo waa talo Suldaanka